halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa taxanaha sharciga dabeecadda qaybta saddexaad. fadlan haddaad janalka ku cusub tahay subscribe dheh janalka haddii aad nala joogtayna like saar si aad ula socoto qaybaha xiga. ku saliya xabiibkeena aan bilowno koobidda taxanaha. waxay qaybtu ku bilaabanaysaa yaman oo taagan buurta dusheeda isagoo naxsan oo uu qaylinayo islamarkaana u dhawaaqaya doga kadib markii ay gaarigeedu ku dhacay badda. waxaanaynu arkaynaa yaman oo aan ka fikiri hal ilbiriqsi isku tuuray badda dhexda biyaha uu ku dhibtoonaya ilaa uu ka gaaray gaariga kana soo bixiyey iyadoo miyir doorsoon gebi ahaanba. wakhtigaas mart wuxuu taagnaa xeebta isagoo ka daawanayo meel fog iskuna madayin inuu caawiyo dooga badbaadinteedii. markii uu yaman keenay doga bariga, mart ayaa ku soo cararaya isagoo iska dhigaya mid cabsanaya soona dhexgelaya arrinta. wuxuu iska dhigayaa mid hadda yimid oo caawinaya. waxaadna arki yaman oo ku eegaya eegmo caro leh oo aan u dulqaadan karin. laakiin mart wuxuu ka faa'iidaystay in doga aanay dareensanayn waxa dhacaya, wuxuuna ka qaatay yaman si qasab ah isagoo xambaaray doga kuna yidhi yaman gebi ahaanba ka fogow oo ha taaban, isagoo kor ula baxay si uu hor cadeeyo dadka inuu yahay geesiga naftiisa khatarta geliyey oo badbaadiyey. wakhtigaas oo yaman taagan yahay isagoo qalajinaya dharkiisa kuna diganaya nasiibkiisa. waxaan u gudbi doonaa xafiiska qulus. dabadeed waxaa soo gelaysa haybta kalkaalisada iyadoo aad u walaacsan, garaaca wadnaheeduna dheerayo, dareemaysana in ay wax jiri karaan. waxaanaynu arki hulusi oo ku eegaya yaab kuna odhanaya maxaad halkan ka samaynaysaa, maxaadse u timid? waxayna ugu jawaabi iyadoo cabursan, waan ku caburay fadhiga guriga kadib markii aad adigu tagtay, dogana sidoo kale way tagtay. waxaanan u walaacsanahay gabadha, waxaanan dareemayaa in wax shar ah inay ku dhici doonaan. hulusi wuxuu ku eegi qabow wuxuuna odhanayaa, waa maxay waxa jira, maxaad arrinkaas u buunbuuninaysaan? ma waxaan u diray shiinaha? waxay joogtaa beerta, haybtuna ma aamusayso, waxayna sii wadaysaa qaylo ay ku leedahay isaga iyadoo eedaynaysa kuna canaananaysa adkaantiisa iyo dhiiranaantiisa. waxayna u sheegi inay qasab ku tahay inuu u fiirsado gabadhiisa in yar. waxay sheegaysaa inay weli yar tahay oo aanay xamili karin dhaqankaas qalalan, iyo inay tahay inay dareento naxariistiisa xajmigeeda. si kadis ah hadalka dhexdiisa telefoonka hulusi ayaa dhacaya, waxaana soo wacaya kasim. markii uu ka qabto wuxuu ogeysiinaya masiibada iyo in doga ay gashay shil dhanka gaariga ah kuna dhacday badda iyo inay hadda u sii wadaan dhanka isbitaalka. kadib hulusi iyo haybta wejigoodu wuxuu isku beddelayaa qaab walwal ah baaxadda cabsida darteed. wayna carari doonaan labadooduba si ay u tagaan dhanka isbitaalka. isbitaalka dhexdiisa doga waxay bilaabi inay miyirsato oo furto indhaheeda. dhakhtarkuna wuxuu u xaqiijinayaa kuwa taagan inay noqotay mid fiican oo ay ka baxday marxaladii khatarta ahayd. daqiiqadaas mart wuxuu ka faa'iidaysan fursadda wuxuuna bilaabi inuu ismuujiyo kuna qanciyo inuu yahay kii isku tuuray biyaha uuna badbaadiyey dooja uu aad u daalay. doga iyo fera ayaa rumaysan doona, waxayna sii wadayaan inay la qoslaan una mahad celiyaan geesinimadiisa. sidoo kale ayten oo saaxiib la ah mart ayaa bilaabi doona inuu dhibo fera isagoo isku dayo inuu u dhowaado. waxaanaynu arki doga oo u mahadinaysa qof kasta oo taagan hareeraheeda una sheegi kasim inay hubtay in aabbaheed u soo diri doono si uu u ilaaliyo uguna. waxayna ka baryaysaa inuusan u sheegin aabbaheed waxa dhacay si aanu u walwalin. waxaan arkaynaa yaman oo soo gaaraya isbitaalka isagoo dharkiisu weli qoyan yihiin. wuxuuna u walaacsan yahay doga, wuxuuna doonayaa inuu ka xaqiijiyo iyada naftiisa kadib markii uu gacantiisa kaga soo saaray badda markii ugu horraysay ee uu qolka galo. doga waxay ku eegi eegmo ay ku dhex jirto caro iyo nacayb, mana rabto xataa inay aragto wejigiisa. waxayna isu beddeli doontaa xinjir caro ah. waxayna sii wadaysaa inay kula hadasho qaab liita iyo kibir. waxay u odhan doontaa codkeeda kii ugu sarreeyey, maxaa halkan ku keenay? adiga ayaa sabab u ah wax kasta oo igu dhacay. shilkan ma dhici lahayn laantaada. madax adeygaaga iyo adkaantaada ayaa sabab u ah. waxaan ku dhowaaday inaan lumiyo oo lumiyo naftayda adiga dartaada. yaman wuxuu ku eegaya deganaansho shucuureed oo buuxda, wuxuuna ka goyn doonaa hadalka badtantiisa. wuxuuna ku odhanaya, haddaba waa ku filan tahay anigu saas ayaan kaaga xaqiijiyey inaad noqotay sidii daanyeerkii, carabkaaguna dherarkiisu yahay 2 mitir. marba haddii aad awoodo inaad u qayliso sidaas, macnaheedu waxba kuma gaarin. wuxuuna u jeedinayaa dhabarkiisa si kalsooni buuxda ah. wuxuuna ka baxayaa qolka. dogana way la gariiraysaa dhaqdhaqaaqiisaas, ferana way dejin doontaa. dhakhtarad bushra oo soo baxday inay tahay saaxiibtii hore ee yaman ayaa geli doonta qolka si ay u hagaajiso dhalada faleebada. waxayna maqlaysaa hadalka doga ee ka dhanka ah yaman, wayna ka xumaan doontaa sababtoo ah waxay taqaanaa yaman iyo geesinimadiisa. waxayna u odhan doontaa doga cod qalafsan, fadlan aamus oo seexo adoo aamusan, sababtoo ah dhaqdhaqaaqaaga iyo qayladaada saas ahi waxay dhib ku tahay xaaladaada. dhanka hoose ee barxadda isbitaalka waxaanaynu arki yaman isagoo kula hadlaya eedadiis berihan telefoonka iyadoo u hamuun qabta weydiinaysana, i xaqiiji yaman, gabadha doga sidee tahay, caafimaadkeeduna waa sidee? yaman ayaa qosli doona wuxuuna ku odhan doonaa, ha baqin eedo, tani waa mid aad u fiican sidii iyada oo aanay waxba ku dhicin. waxaan eegi doonaa isla wakhtigaas dhanka beerta oo reerku jooga. waxaan arkaynaa berihan oo u walaacsan doga kana baqaysa in xiriirka qoyska halaabo. waxaa soo bixi doonta misrin oo ah gabadha adeerka u ah yaman. waxayna u odhan doontaa berihan, maxaad adigu iskugu wareejinaysaa? ka tag gabadha, hadda waxaa muhiimka ahi masiibadan dhacday kadib. mudane hulusi miyuu sii wadayaa nala joogitaanka shirkada oo mana siinaya lacagta, mise naftiis ayuu la bixi doonaa oo aynu tuugsan doonaa? waxaynu ku laaban doonaa mar kale isbitaalka hoostiisa. burak wuxuu sii wadayaa inuu ku dhufto dhegta yaman isagoo weydiinaya, haddaba anaga maxaa nagu dhici doona haddase? jilkan kadib beertu miyay naga tegi doontaa mise? yamanna wuxuu u sheegi inaan ogayn, laakiin isagu haddii uu khalad jiro uu khaldan yahay, haddii qof tegayo uu isaga keliya noqon doona.
burak wuxuu ku oranayaa beertu ma soconayso adiga laanta adiga ayaana ah kii waday marka horeba si kadis ah waxaa soo gaari doona gaariga raaxada ah ee mudane hulusi waxaana ka soo degi doona isaga iyo haybta iyagoo aad u caroosan markii ugu horraysay ee yaman iyo burak arkaan way u tegi doonaan si degdeg ah si ay u salaamaan uguna xaqiijiyaan caafimaadka laakiin hulusi wejigiisa wuu isu bedeli doonaa markii uu arko yaman wuxuuna ilaabi doonaa inuu ku qayliyo isaga kuna oran doonaa inuu asiga sabab u yahay wuxuuna ku oran doonaa si carro ah sidee ayaad u ilaalin weyday gabadhayda anigoo kugu aaminay inaad iigu soo celiso iyada isbitaalka jiifta yamanna wuxuu kula hadli doonaa edeb iyo xushmad kasta wuxuuna ku oran doonaa aad baan kuugu cudur daaranayaa aniga ayaana ka ah mas-uulka koowaad iyo kii ugu dambeeyey ee khaladkan haddii aad doonayso inaad qof ciqaabto iyo ciqaab aniga keligay laakiin fadlan ha ka bixin heshiiska beerta oo dhan sababtoo ah waa qaladkayga hulusi wuxuu ku oranayaa ma waxaan ka fikiri doonaa beerta iyo shirkada hadda gabadhaydiina ay ku jirto gudaha isbitaalka arag meesha aad u socoto orod ka fogo wejigayga wuuna ka tegi doonaa hulusi iyo haybta waxay geli doonaan qolka ay joogto doga si ay ugu xaqiijiyaan caafimaadkeeda waxayna noqon doonaan kuwa baqaya oo aad u walaacsan donana waxay sii wadaysaa inay u xaqiijiso iyada una sheegto inay noqotay mid fa'an daqiiqadaas mart wuxuu soo dhex gelayaa hadalka wuxuuna ku oran doonaa hulusi hawalwelin adeer gabadhaadu waxay noqotay sidii hore si ka fiican hulusi wuxuu ku eegaya si yaab leh wuxuuna ku oranayaa adigu marka horeba maxaad halkan ka samaynaysaa martna wuxuu ugu jawaabayaa anigu waxaan leeyahay in yar oo shaqo ah oo aan halkan ku dhammaynayo dogana waxay u sheegi doontaa aabaheed mart isaga ayaa ah kii iga badbaadiyey biyaha igana badbaadiyey geerida mart isagoo u soo degaya hoos wuxuu arkayaa yaman oo taagan wuxuuna u tegi doonaa inuu ku dhibo soona kiciyo caradiisa kuna oran doonaa ma adigaa weli halkan jooga adigu hubaal waad dhammaatay wiilow orod tag diyaari waraaqaha iibka beerta si aad u dhammaato yamanna wuxuu ugu jawaabi doonaa si kalsooni ay ku dheehan tahay wuxuuna ku oran doonaa haddii uu qof kale ahaan lahaa wuu iibsan lahaa igama qaadi doontid haddii aad wax kasta samayso wuxuuna ku oranayaa mart ma waxaad u haysataa naftaada inaad noqotay nin markii aad ku qancisay qof kasta inaad adigu tahay kii badbaadiyey doga martna wuxuu ugu jawaabi doonaa wuxuuna ku oranyaan adigu marka horeba ma awoodid inaad wax samayso marka labaadna orod u sheeg qof kasta inaad adigu tahay kii badbaadiyey marnaba qofna ku rumaysan maayo wayna ku beenin doonaan adiga yamanna wuxuu ku oran doonaa aniga waxay magelin marka horeba waxaanan kuugu tegayaa inaad ku noolaato doorka geesinimada sababtoo ah waan kaa deeqsisanahay adiga martna wuxuu sii wadayaa inuu ka xanaajiyo ilaa uu saaxiibkiis kaga imaanayo gaariga burak ayaa u imaan doona yaman uuna weydiin doonaa wuxuu ku oranayaa kan liitaa yamaan asigana wuu dhahayaa haddaba ha ku mashquulinin maskaxdaada isaga burakna wuxuu oranayaa anigu ilaah baan ku dhaartay waxaan la yaabanahay in kan xun uu yahay kii badbaadiyey doga halkan yaman wuxuu ku oran doonaa aniga ayaa badbaadiyey burakna waa ku naxay yaman wuxuu soo bixin doonaa telefoonkiisa wuxuuna tusi doonaa fiidiyow subxaanallah waxaa jiray kaluumaysato joogay wakhtigaas sawirayna aniga oo badbaadinaya doga waxaana si cad u muuqata in yaman yahay kii u booday badda oo soo badbaadiyeyna dooja burak wuxuu qaban doonaa telefoonka wuxuuna oran doonaa waa inaan soo gelinaa meel kasta iyo goob kasta laakiin yaman gebi ahaanba wuu diidi doonaa wuxuuna u digi doonaa inuu u sheego qof kasta gaar ahaan doga burakna wuxuu ku oran doonaa waa hagaag laakiin haddii aan ogaan lahaa mabada nacaybkaaga ee iyada aad u qanto yamanna wuxuu ku oran doonaa xidh mawduucaas waxayna fuuli doonaan gaariga wayna tegi doonaan agta doga ee isbitaalka waxay u sheegi doontaa aabaheed hulusi inaanay ku laaban doonin beertan marnaba kadib waxaa dhacay aabaheedna wuxuu ku oran doonaa maya gabadhayda macaantayda kuma laaban doontid wuxuuna u sheegi doonaa inuu akhriyey fikradda mashruuceeda ee baris uuna aad u jeclaaday uuna u arko inay tahay mid karti leh oo caqli badan uuna u ogolaaday inay safarto oo ay samaysatana mashruucaas dogana waxay u duuli doontaa farxad darteed mana rumaysan doonto nafteeda waxayna sii wadaysaa habsiinta aabaheed iyadoo aad u faraxsan markii uu hulusi dhammeeyo hadalkiisa haybta aydash waxay ku oran doontaa isaga ugu dambayntii in yar ayaad u fiirsatay gabadhaada tani waa markii ugu horraysay ee aad garatay in shaqadeedu ku cajabisay hulusi wuu ku eegi doonaa wuxuuna oran doonaa waa maxay shaqadaani tani waa mashruuc liita gebi ahaanba markaas aydash waa naxi doontaa waxayna ku oran doontaa haddaba maxaad ugu tiri sidaas wuxuuna ku oran doonaa sababtoo ah niyada darteed aniga ayaa ku khaldan iyada waana inaan hagaajiyo khaladkayga raaligeliyaana waxaanan u dayn doonaa inay aaddo baris oo samayso waxa ay doonayso waxa ugu muhiimsan waa inay noqoto mid fiican oo faraxsan beerta dhexdeeda eedadiis berihan waxay weydiin doontaa yaman markii ugu horraysay ee uu soo laabtay maxaad u keeni weyday hulusi adiga kula jira wuxuu ku oran doonaa isagu uma dulqaadan karo inuu eego wejigayga waana ina eb yahay daqiiqadaas reerka oo dhan waxay sii wadayaan inay ku hadlaan hal cod sidii caadada ahayd waxayna sii wadayaan inay qayliyaan oo hadlaan yamanna wuxuu noqon doonaa mid aan ogeyn waxa uu ku samayn lahaa iyaga nesrin ayaa soo geli doonta waxayna oran doontaa aynu ka iibinno beerta mart oo aynu qaadano lacagta waana intaas tani waa halka ugu ficin ee inaga inoo ah yamanna wuu ku eegi doonaa asigoo dhibsanaya wuxuuna oran doonaa waxaan rajaynayaa inaad sheegto hadal caqli gal ah xataa haddii ay tahay hal mar adeerkay naagtiisii nesrin waxay ku oran doontaa isaga haddaba hor baad tahay idinka ayaa ka shalayn doona markii waddooyinka nagula tuuro dhanka kale waxaanaynu arki doga oo la fadhida fera badda agteeda iyadoo u sheegaysa iyadoo faraxsan waxa aabaheed yidhi iyo inuu oggolaaday mashruucii baris dogana waxay oran doontaa tani waa markii ugu horraysay ee aabahay igu qiimeeyo daal aan daalay ama fikrad maskaxdayda ku jirtay ferana way u hambaliyeyn doontaa waxayna ku oran doontaa hambalyo waxaan hubaa inaad awoodi doonto waxayna noqon doonaan kuwa aad u faraxsan isla wakhtigaas hulusi wuxuu fadhiyaa badda agteeda asigana sidoo kale muusan u laaban istanbul berihan waxay u tegi doontaa inay la fadhiisato isaguna dhexdiisa wuxuu noqon doonaa mid aad u faraxsan fadhigeeda darteed waxaana muuqata saas inay isjecel yihiin
waxayna u fadhiisan doonaan inay ka hadlaan tuulada iyo inayna isbedelin iyo jacaylkeeda uusan yari dhiman. isaguna wuxuu ula jeedaa hadalkiisa jacaylka berihan nafteeda. taasina waxay ku muuqataa eegmada indhihiisa. waxayna ka hadli doonaan shaqada iyo beerta. Ulusina waa u xaqiijin doonaa caafimaadka. wuxuuna ku oran doonaa, ha baqin, anigu marnaba idinka tegi maayo. anigu keliya waxaan ahaa mid yara caraysan. caradaydiina waxaan ku soo saaray Yaman. berihanna waxay ku oran doontaa, dib ma lahan. Yaman wuu bartay, wuxuuna leeyahay dulqaad. marnaba ma carooto. cimiladuna waxay noqon doonaa mid aad u qabow. wuxuuna siin doonaa shalkiisa maradiisa si ay ugu diirato dhexda muuqaal jacayl ahsaas ah. Mart wuxuu ahaan doonaa